إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan gudu jirnaa muxaadarooyinkan u hadlaynay masaa'il ku saabsan ramadaanka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay macrifatu waqti dukhuuli ramadaan wa waqti khuruuji in la garto ramadaanka waqtiga uu soo galayo iyo waqtiga uu baxayo arintaana waxaan sheegnay dhowr iyo 10 mas'ala inay ku sugan tahay waxaana kamid ah masaa'ishaasi hadii ay dhacdo qofkii inuu soonku ku bilaabo beled ama meel uu ku soomo kadibna meeshii uu ku soomay oo ka wareego oo beled kale ama dhul kale uu guuro ramadaanka dhexdiisa marka uu afurayaa muxuu ku afurayaa waxa dhici karta qofkii asoo jooga Soomaaliya inuu soonka ugu dhashay Soomaali kadibna uu u safray Kenya ama wadamo kale u safray hadii ay arintaasi dhacdo ramadaankii markuu furayaa muxuu yeelayaa arinta bay culimada ka hadlaan waan arin muhiim ah weeyaan waayo waxa dhici karta qofkan inuu asiga oo safar ahaan oo joogo inuu safar ku soo yimaado ba dhici karta ama ay arin safar ay qabato muxuu sameeyaa marka hadii arinta safarka ay ku timaado asiga oo ramadaankii meel ugu dhashay hadana meel kala tagay in iskhilaafan ba dhici karta oo maalintii asiga soonka u bilowday in qoladaas oo u tagay aynan u bilaabanin ama maalinta ay furayaan oo ciideysanayaan meeshii asiga soonka ugu dhashay dadkan in maalin ka dambeysay ciideysana ba dhici karto arintaas marka culimadu way ka hadlaan waxa la leeyahay qofka haduu ka wareega beled oo soonku ku bilaabay markii hore asoo ehelkiisa iyo meeshii joogo dhul kalena uu tago xagga afurkiisa xukun ku saabsan wuxuu noqonayaa in qolooyinkaas oo u tagay ama beledka uu tagay ama dhulka uu tagay sida ay yihiin dhulka uu wareegay haday afuraan wala afuraya haday yaani maragtay soomayihiinna waa la soomayaan ha isku mid noqdaan inay maalin wada soomeen ama inay yaani maalmo kala dambeeyaan has ahaatee 29 maalmood ka yar hadii ay ku qaadato soonki maalin kamid inuu qadayay bay noqonaysaa oo 18 maalmood haduu soonaa tusaale ahaan maalintii 29 qolooyinkaas hore bay u sii soomeeno maalin ka horeeyay ma dhici karto marka hadii ay 29 ay ku fureen asiina ay 28 u tahay maalinta inuu qadayay ay waajib ku noqonaysaa maxaa yeelay bisho 29 marnaba kama yaraato marka inuu qadaya ay waajib ku noqonaysaa saa ay culimadu leeyihiin mas'aladaas waa mas'alo muhiim walaalayaal sheekh weyn oo leeyahay Raafici oo iskale asharxul kabiir ayaa wuxuu leeyahay ala alqawl bi anna li kulli baldatin hukmuha fa fi wajhani qawlka ah markaan qaadano balad kasta inuu leeyahay xukunkiisa gaarka ah la wajiba ku sugan buuri labada waji midka ugu daahirsan waxa weeyo yiri annahu yasumu ma'ahum qofka uu la soomaya qolada uu tagay لانه محل بالانتقال الى بلدتهم اخذ حكمهم وصار من جملتهم قف كان wareega uu wareegay dhulkoodii ay wuxuu ku qaadanaa xukunkoodii ayaga ayuuna kamid noqonaya mar haddii qofkii Soomaali uu ka tago oo meel kale uu tagay meesha kale uu tagay xukunkeeda ayuu qaadanaya sida ugu daahirsan saawi uu leeyahay Imaam Raafici rahmatullahi alayhi wajka labaadna waxa uu yiri annahu yufdir لانه التزم حكم البلده الاولى فيستمر عليه wuxuu leeyahay wajka labaadna qofkii waa furaya soonka maxaa yeelay qofkan wuxuu qaatay beledkii hore ee uu soonku ku bilaaway ama dhulkii hore oo soonku ku bilaaway xukunkeeda buu qaato laazimay marka ayagaas oo ku socona wadadoodiyo haday furaan ayagaas uu la furaya dhulkan hadda uu joogo dadka ku nool haday doonaan haba soonaadeen mas'ala marka sida raajix marka la fiiriyo waxa weeyaan wuxuu qofkii ictimaadaya oo yaani maragtay oo dhaqan gelina waxa weeyaan beledka oo u wareegay dadka ku nool sida ay yihiin hadii ay soomayeen wala soomaya hadii ay furaanana wala furaya haba dhacda in maalin ka badan ay ku soo korortaba waxa dhici karta dhulkii asiga uu ka yimiday in ay maalin soomeen markii maalintaas tira laga soo bilaabana 30 inuu buuxsamay dhulkii kale uu yimidna ay maalin dhulkiisa ka dambeeyeen taasoo keeni karta inuu 31 maalmood soonka uu noqdo arinta haday rabto ha dhacdo qofkii inuu soomo ayaa waajib ku ah
xitaa kuwii 30 maalmood haba gaartee maxaa yeelay dadka uu hadda la nool yahay amaba dhulkooda uu joogay bishii maynan arag mana u dhameystirman agtooda tiradii sadarta marka waa inuu la soomaa kuwii 30 maalmood darabta gaarto haddii ay maalin ka yar tahayna oo 29 maalmood ka yar ay ku qaadatana waxa waajib ku noqonaya asiga inuu maalin uu qaday waa waajib ku noqonayso ilaan xukunkooda buu qaatay mas'ala kale aynu gudbaynaa oo ah kayfa yasuumu al-asiru idha lam ya'lam bidukhuli waqti shahr ramadan maadaama hadda aan ka hadlaynay bisha ramadaan galideeda waxyaabaha lagu garanay iyo bixitaankeedii waxa dhici karta qofka inuu yahay maxbuus ama xabsi uu ku jiro oonan garanaynin bishii ramadaan waqtiga ay imaatay ama ay soo galayso muxuu sameyn karaa maxayna arinta culimada ka dhaheen ila 5 mas'ala ay arintaasi ku sugan oo culimada ka dhaheen mas'ala koowaad waxa weeyaan waxa waajib qofka ku ah in uu sameeyo wax kasta oo bisha ku garan lahaa waxa la leeyahay adiga maadaama aad maxbuus tahay bishii inaad garata waqtiga ay soo galaysan ay ku suuragal ahayn wax kasta suuragal ka dhigay bish inaad garataay ayaa sameynaysa baa la leeyahay arinta iyadana fuqahaada waa isku raacsan yihiin oo waxa la doonayaa qofkaasi dadaal iyo ijtihaad inuu la yimaado sidoo bisha u garan lahaa markii uu is yiraahdo bishii way dhalatay ijtihaad iyo juhdi u bixi kadib arintaas ayuu ku amal falayaa soonka ayuu la imaanayaa mas'ala qaybteeda koowaad waxa weeyaan marka haduu yahay qofka maxbuus waajibka saaran wuxuu yahay wax kasta oo bisha galitaankeeda uu ku heli karo oo uu ku garan karo ayuu la imaanayaa saasuna uu ku soomahaya mas'ala labaad arinta ku sugan waxa weeyaan qofka haduu shakiya bisha ramadaan inay timid ama soo gashay oo markaas iska sooma asoon dadaal iyo juhdi aan la imaanin maxaa arintiisa ay noqonaysaa waxa dhici karta qofkan inuu iska soomay waa maxbuus suuragal maaha bishii inuu arko asoo aanan hubsanin oo aan taxqiiq sameeynin oo aan baaritaan sameeynin ayuu iska soomay asoon yaani maaragtay raadin badan aan sameeynin arintaas culimadu isu khilaafeen ilaa 2 qowl ayaa mas'alaas iyada ku sugan qowlka koowaad wuxuu leeyahay hadii ay dhacdo qofkii in yaani maaragtay uu garan waayo ama uu shakiyo bishii ramadaan soo galideedii oona iska sooma asoon dadaal iyo juhdi aan la imaanin bisha uu soomay ay tahay bil ramadaan soonkiisi waa u guntamaya oo ansaxaya hadii bisha ramadaan aynan ahayn soonkiisa ansixi ma buu leeyahay qowlkaasina waa wajh Xanaabila ay leeyihiin waxayna xujaysan dililka dhiganayaan qofka asaga ah wuxuu asiibay oo haleelay bishii in la soomo la iska doonayay marka inuu qaday wajh kuma habay yiraahdeen haba khalad ku galo dadaal la'aanta iyo degdega soonka uu la degay asagoo aan yaani maaragtay wax xaqiijinin qowlka labaad ee mas'ala ku jira wuxuu leeyahay qofka shakiyay bisha ramadaan soo galideedii ee iska soomay asoon dadaal iyo juhdi aan bixinin xaaladaas markuu yahay inuu soomay ma u banaano oo malahan inuu soomo hadii ay dhacdo inuu soomo oo ay dhacdo bishii ramadaan ba inuu waafaqa soonkiisu ansixi maayo inuu su'ila waajib ku ah waana qowl jumhuur culama ay qabaan waana sida saxiixa ka Xanaabilada agtooda waxayna xujaysanayeen leeyihiin asiga waxa laga rabay qofkan dadaal iyo juhdi inuu la yimaado oo bishii sidoo imaashaheeda ama waqtiga ay soo galayso uu ku ogaan lahaa inuu juhdi ku bixi baa la rabay arintaana ma yeelin marka hadii qofkii dhannigiisi ama yaani maaragtay manihiisi uusan waxba yaani maaragtay qaalib noqonin inuu soomo uma banaana waxa kale laga rabaa waajib ku ah inuu soonka dib u dhiga ilaa ay malahiisi uu badnaato in bisha ay tahay bishii ramadaan ama bisha ramadaan inay soo gashay waafaqida bishan oo waafaqayna ma aha bayraan ijtihaad iyo dadaal kama ahayn inuu soo celiyo waajib ku ah maadaama uu tagay dadaalkii asiga laga rabay inuu la yimaado waa sidii qof asiga iskii qaldantay qibladii asoo salaad ku jiro markaasoo jiha ama meel buu u dukaday asoon dadaal la imaanin qiblada ayuu waafaqay mana ansixi salaadiis qofka muslimka ah hadii salaad uu dukado wareerna uu ku jiro oo garan waay qiblada dhinaca ka jirto asoon dadaal sameyn haduu iska dukadaayo xitaa had dhacdo inuu qiblada waafaqay salaadiis ansixi mayso laakiin haduu dadaal iyo juhdi u bixiyay intii tabartiisa uu dadaalay kadibna meel uu maleynay qiblada u jeestay hadii ay dhacdo xitaa in qiblada uusan waafaqin waxa weeyaan salaadiis waa ansixisa mana soo celinay baa leeyahay masalada ah ramadaanka gelitaankiisa qofka haduu shakiyo oo iska sooma asoon dadaal iyo juhdi aan la imaanin 2 qowl ay masalaas culimada ka qabaan qolku waa wuxuu leeyahay bisha ramadaan haduu asiiba waa ansaxaya haduuna asiibina ma ansaxaya qolka labaad wuxuu leeyahay inuu sooma malahan xaaladiis markay saan tahay
haddii uu soomo bisha ramadaan uu asiibana soonkiisa ansixi maayo waxaana raajixa qowlka jumhuurta ee ah inuu soonkiisa ansixaynin inuu qadayna waajib ku ah qofka haddii ramadaanka gelitaankiisa uu ka shakiyo asoo dadaal la imaanin oo iska soomo soonka hadduu doono xataa ha asiiba bisha ramadaan ma ansaxayo inuu qadayna ayaa waajib ku ah waayo wuxuu soomay qofka asaga shaki buu ku soomay asoo aan dhanni raajix ah aan waxa haysanin arimaha noocaasi ah waa in lagu baraarugsanaada mas'alada kale oo gudbayna waxa weeyaan ee ku sugan sida uu soomaya qofka maxbuuska ah haduusan ogaanin bisha ramadaan gelitaankeeda waxa weeyaan haddii ay dhacdo qofkii inuu soomo dadaalna uu bixiyo dadaalkii uu bixin ay keentay bishii ramadaan inuu waafaqo ama ramadaan kadib uu waafaqay sida bishii soonfur oo kala ama bishii ka dambeysay dilqacda oo kala soonkiisa muxuu noqonayaa qofka ijtihaad idaal buu sameeyay wuu soomay bishii ramadaan buu waafaqay ama bishii soonfur buu waafaqay ama bishii ka dambeysay soonfurka dilqacda ayuu waafaqay arintaas ay culimadu isu khilaafeen ilaa laba qowl ayaana ku jiro qowl wuxuu leeyahay marba hadii ijtihaad intuu la yimaado bishii ramadaan uu waafaqay ama bishii shawwal uu waafaqay ama dilqacda uu waafaqay soonkiisa ansixi maayo inuu qaday ana waajib ku ah waxaana qaba maalikiyada qaar kamid ah oo waxayna daliilsan u leeyihiin qofkaan soonkiisa wuxuu ku taagnaa dhanni ama malab ku taagnaa ee yaqiin iyo hubaal kuma taagneen marka inuu soomo yaani maragta waxba keeni meesay inuu qaday waajib ku abay leeyihiin qowl labaad wuxuu leeyahay soonkiisa uu ansaxaya inuu qadayna waajib kuma ahan waana qowlul jumhuur waana sida mu'tamadka ka ah maalikiyada agtooda waxayna xujaysanayaan oo leeyihiin qofka asaga dadaal buu bixiyay intii uu awoodo waa dadaalay sida uu filayay ayuu sameeyay oo ah bishii ramadaan inuu waafaqay ama bishii soonfur ama bishii kasi dambeysayba labada qowl ayaa mas'alaas ku jiro qowlku uu raajaxsan waxa weeyaan waa qowl jumhuur ee dhahaya qofka haduu dadaal iyo juhd uu bixiyay bishii ramadaan ha waafaqo ama uu waafaqina soonkiisa uu ansaxaya mas'alada afraad ee isla mas'alada ku jirta waxa weeyaan qofka hadii uu soomo asoo ijtihaad idaal la yimid ramadaan ka horna uu ku dhaco hadda waxaan ka hadlaynay asoo ramadaanka waafaqay ama bishii ramadaan ka dambeysay soonfurka ama sidiltaalka waafaqay tan waa ka duwantoo waxa dhici karto inuu dadaal la yimid laakiin ramadaan ka hor buuba ijtihaadkiisa uu waafaqay arintaas culimadu maxay ka dhaheen ila laba qowl ayaa mas'aladaas iyada ku sugan qowl wuxuu leeyahay soonkiisa uu ansaxaya inuu qadayna waajib kuma ahan mas'aladaas iyada waa wajh shaafici ay leeyihiin iyo wajh xanaabila ay leeyihiin waxayna xujaysanayeen leeyihiin qofka asaga wuxuu leeyimid wixii tabartiisa ah dadaal buu leeyimid woona soomay qofka asaga wuxuu sugay leeyihiin oo taxqiijiyay wixii laga doonayay khaladkan dhacayna waxa weeyaan dabcan ujeedada la'aan buu ku dhacay ama qasd la'aan buu ku dhacay qowl labaad wuxuu leeyahay soonkiisa ansixi maayo inuu qadayna waajib ku ah haduu soomo waana qowl jumhuur waana madhab cinda al-hanabila waana sida mu'tamadka kama shaafici agtooda waxayna xujaysanayeen leeyihiin qofka asaga cibaadada buu gutay waqtigeedii ka hor cibaada aan waqtigeedii la gaarin qofkii gutaay ansixi mayso waxay la mid tahay arintaasi qof dukaday salaadii duhurka ka hor hadii salaad duhurka soo cili baa leeyahay hadii ba qabla zawal salaad ay dukatay soo qofkaasi salaad ay u ansixinin oo inuu salaad soo cili waajib ugu tahay ayaa waxa la rabaa haduu ramadaan ka hor oo soomayna inuu soonka soo cili baa la doonayaa sida raajix mas'alada waxa weeyaan qolka jumhuurta weeyaano waxa weeyaan in soonkiisa uu ansixinin inuu qadayna ay waajib ku tahay mas'ala shanaad oo arintaas ku jirta waxa weeyaan waxaan ku jirnaa qaybtii sida uu soomay qofku maxbuuska ah haduusan ogaanin bisha ramadaan waqtiga ay timiday ama ay soo gashay ama in ay dhalatay mas'alada shanaad arinta ku sugan waxa weeyaan hadii qofkii maxbuuska ah uu soomo asoo dadaal iyo juhdi bixiyay shakigi iskaalkina uu sii socdo oo kala garan waayo in uu soomay bishii ramadaan ama inuu bil ka dambeysay soomay ama bil ka horeysay uu soomay qofkan wuu dadaalay ijtihaad buu la yimiday laakiin dadaalkii uu la yimiday kama joojinin in iskaalkii ama mushkiladii ay jirto wuxuu shakiisan yahay isleeyahay tolo ramadaankii baad waafaqday ama bishii ka horeysay ramadaankii baad soontay ama bishii ka dambeysay arintaasi culimadu maxay ka dhaheen culimadu waa soo khilaafeen ila laba qowl ayaa mas'aladaas ku sugan qowl wuxuu leeyahay qofka asaga soonkiisa uu ansaxaya inuu qadayna waajib kuma ahan waana si jumhuur culimo ay qabaan qolkana wuxuu leeyahay soonkiisa asixi maayo inuu qadayna waajib ku ah jumhuurtu waxay dilisanayeen leeyihiin qofka asaga ah faradkii uu gutay dadaal uu bixiyay ka bacdi soonkiisa uu ansaxay bay yiraahdeen waxay la mid tahay bay yiraahdeen qofkii maalin daruur badan dukaday dadaal iyo juhdi min bixiyay ee salaada dukaday mugdi sida daahirka waxa weeyaan qofka asaga ah
salaadiisii way ansaxay mana soo celinay bay yiraahdeen saan hor u sheegnay mas'ala waxa raajix qowlo jumhuur oo waxa la leeyahay haddii qofkii dadaal iyo juhdi la yimaado ishkaalkii iyo mushkiladina ay sii socoto oo garan waaya inuu soonka waafaqay iyo inuu ka hormaray iyo inuu ka daba maray oo garan waayo waxa la leeyahay soonkiisu ansaxaya inuu qadayana waajib kuma ahan waana si jumhuurul culama ay qabaan insha Allah ta'ala muharramada xigta ayaan waxaan ku arki doonaa mas'ala ku saabsan hawlu niyyati fi siyami wax ku saabsan niyada soonka markii la joogo hada wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh